salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaaleyga qaaliga soo dhawaada meel walbaa dunida afheeda ka joogtaan waa mar kale iyo walaashiina saraabtidoon oo maanta idiin wado muuqaal kale cusub. ugu horeyn asxaabteeda qaaliga waxaa rabaa inaan idinkaga mahad celiyo sidaa mar walba iila socotaan iyo dhiirigelisaan iyo usoo dirtaan fariimihiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta. aada u mahadsantihiin meel walbaa joogtaan, waxaa idin leeyahay farxad ku noolaada. maanta waxaa inoo wadaa qada aada u macaan oo dhammaystiran oo wax aan ka maqnayn insha allah, oo ka kooban muufo aada u macaan runtii aan laga sheekeyn karin. idinkaa arki doono, idinkaa daawan doono oona ku maqsuudi doono insha allah. sidoo kaleeto maraq isku dheelitiran oo isagana lagu cuni doono. saladkii ayaan ka maqnayn qadadeena maantay, sidoo kale cabitaankii la cabi lahaa, waxaa kaleeto ka maqnayn furuudkii la cuni lahaa qadada kadib, waxaa ku dhahay bisbaaskii. insha allah waa qada dhammaystiran, daawasho wanaagsan. ugu horeyn haddaad tahay qof janaalka ku cusub oo maanta ugu horeys, waxaa ku leeyahay soo dhawow, qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawow. subscribe saar janaalka, kadibna gambaleelka taawo si aad ula socotid cashir walbo insha allah. haddana waa bilaabeynaa. ugu horeyn waxaa ka bilaabayaa muufadii ayaan qasayaa. muufadii waxay ka kooban tahay oo weelkan weyn igu jiro bur, 2 koob oo bur ah ayaa ku jirto. koobka aan ku cabirana waa koobka mar walba aan wax ku cabiro ee koobka shaaxa. sidoo kale weelkan goonida ama koobka waxaa ku dhex jiro oo ku haystaa waxaa waaye qamadi ama sareen la shiiday oo laga dhigay daqiiq ama sida burka oo kale laga dhigay. qamadi dabcan waa wada fahmeynaa, qamadi iyo sareen ani dabcan labadaas magacuna u aqaanaa, idinkana waa wada taqaanaan saa filaayo. qamadiga haddaadan haysanin waxaa ku bedelan kartaa galey iyadana shiidan oo si fiican loo shiiday sidaan oo kaleeto sida burka oo kale laga dhigay. 1 koob oo qamadi ah iyo 2 koob oo bur ah ayaan isku darsaneynaa. muufadeena maanta ayaan rabnaa inaan ka sameyno insha allah. marka koowaad intaasa isku daray. weelashan yaryar waxaa igu jiro 4 qaado oo caano boore ah, sidoo kale 4 qaado oo sonkor ah, qaadada wax lagu cuno waa ku cabiray. waxaa kaloo weelkan ku jiro 3 qaado oo subag ah. subag hadaa haysanin waxaa ku bedeli kartaa saliid yacni, laakiin aan subagaa jeclahay caraftiisa, waana subag saafi ah. 1 qaado oo leebita ah, cusbadii shiidneed insha allah, iyo biyo yar oo qandac ah. aad ma u kulul biyaha laakiin waa xoogaa qandac. intaan muufada qasin hal mar waxaan rabaa inaan idin tuso qamadiga caagan isku daboolka oo iigu jiraa. waxaa sameeyaa markaa suuq bakaaraha aado, hal mar iska soo shiitaa ilaa 3 ama 4 madaal meelahaas oo kaleeto. qamadiga waxaana lagu shiidaa makiinadaha meesha lagu gada badarka. waxaa leedahay sida burka oo kale rabaa inaa iiga dhigtid, waan iska fiirinaya markii lagu shiido, gacanta ku tijaabinaya waa inuu bur camal uu noqdaa oo qofka shaki ka galaa inuu bur yahay inuu qamadi yahay. canjeerada ku darsadaa mararka qaar, mar kaligiis jabaatiya ka sameeyaa, mar muufa ka sameeyaa. muufada saan oo kale ugu darsadaa. haddaada jecleen qamadiga galey oo ku bedelan kartaa, laakiin ani qamadiga iska jeclaa ilaa markiis. marka caagan asturaadu u yahay isku daboolka ee makaa leersanayo, sidaan ayaa sameeyaa insha allah. ka faa'iideysta asxaabteyda. hadda waxaa isku dardareynaa muufadii. inta qaleelka ayaa marka hore ku bilaabaya. sonkortii yaa kusoo gadiyey, caano boorihii sidoo kale waa kusoo daray. waxaa kusoo darayaa leebitadii ama fixisadii sidaa u taqaanaan. waxaa kaloo kusoo darayaa wax yar oo cusbadi ah, cusbada shiidneed. cusbada caadigaaga hadaa haysatay xataa waa isticmaali kartaa intaa tuntid. waxaa kaloo kusoo dareynaa insha allah markaa intaan isdhex gelino oo isku walaaqno. qaadada ayaa isku dhex marinayaa, waa inta qaleelka ahayd. hadda waxaa kusoo darayaa subagii. markay saan sheekada mareyso ani waxaa sameeyaa mararka qaar ukun ayaa ku darsadaa. maanta ukunta maxaa uga dhaafay, waxaas dheh haddaa ukun ku dartid dadka qaar oo waxaa jira isdhahayaan waxaan lagu daray inaa ku dartid ma ahee way kaa halaabeysaa. marka saa idinku qaarkiin u fahmaan darteeda ukunta maanta iskaga dhaafay, yacni se u arkaan in ukun la-aan la sameyn karo. haddaa ukun kusii dartidna maasha allah kaba sii fiicanbo, inay ka qurux badnaad kasii macaanaata ma ahee dhibaato dhankuuma geysanaysa. laakiin ukun la-aanna waa la sameyn karaa. inaa idinka ila fahantaan oo ka faa'iideysataan darteeda u sameeyo ukunta maanta waa ka dhaafay, laakiin inta badan ukunaa ku dara ani.
markaa biyihii qandaca waxaa kusoo daray tartiib tartiib usoo walaaqay waxaa sameyn kartaa markaas cabaar saan u walaaqdid gacanta soo nadiifsanaysaa sida cajiinka camal waa qasaysaa. mararka qaar ani waxaa sameeyaa makiinada isticmaalaa, marna gacanta isticmaalaa, marba hadba sidii aa ka gaaro. laakiin hadda makiinada wax yar ku garaacaya kuskuus yaray leedahay. makiinada waxay kaa saacideyna kuskuuska dhanka baaba isoo liisho ee noqoto. biyahan waa ujeediin xoogaa waa u badiyey, waxaa la rabaa muufa jileec inay noqoto oo biyo biyo ah, ma laga dhigayo wax adag. haddaa makiinadan oo keega lagu qaso aadan heli karin, waxaa ku bedelan kartaa balenderka ama gacanka cabitaanka lagu shiido, dabcan guri walba wuu yaalaa sidaa filaayo. kaas ayaa ku gedisanaysaa hadduu gacankaaga weyn yahay, kadibna waa ku shiidaysaa sida cabitaanka camal. maasha allah. haddii kale maaho waxaas dhan waxaa uga maarmayba gacantaada ku ciilbax si fiican u qas sida cajiinka oo kaleeto. okay, laakiin makiinadii waa iska howl fududeys. maasha allah, waa ujeedin hadda si fiican aa ugu garaacay ama ugu qasay. waxaa waaye liishee noqotay iyada dhan, kuuskuuskii wuu ka baaba'ay waa aragtaan, waana biyo biyo. biyahan qandac inay ahaadaan mar walba fiican, isla markaa hadda indhe soo yeelanaysaa muufada. maasha allah, saas oo tahay waa sugeynaa xoogaa inay qamiirtaa rabaa, waa daboolayaa. markaa sidaan usoo diyaariyay oo u qasay. maasha allah, waa aragtaan siday biyo biyo u tahay kaa adkaan. hadday kaa adkaato hadhow muufada markaa dubto makuu jilcanaanayso. maasha allah, sida baankeyga oo kale la rabaa inaa u jilcisid. muufadan baankeyga way eg tahabo xitaa markii la dubo. hadda waa soo daboolay, waxaa sugeynaa insha allah ilaa 25 daqiiqo meelahaas, kadib waa isku soo laabaneynaa. khiyaarta waxaa rabaa inta ii qamiireyso muufada inaad sii sameysto maraqii loogu cuni lahaa. digsi ayaan dabka soo saaray, saliid ayaan kusoo shubay sidaad wada aragtaan. waxyar markay saliidii ii kulaatay waxaa kusoo darayaa basal, 2 xabo oo basal waaweyn asoo jarjaray. waa ogtiin inta badan ani markaa cunto sameynaa basal badaana ku daraa, basasha aada u jeclahay. yacni jecel goonina ma ahe, cuntada macaaneyneysaa ama dhadhan fiican u yeeleysaa. laakiin dadka badankood ma fahansana sirtaas. jeex basal iyo wax yaraa liskaga darsadaa. aan suuga ha dhihin, bariis ha dhihin, wax walba basasha inaa u badiyaa jeclahay. basasha laakiin noolnoolna ma jecli, waa ku lablaboonaa iyadoo noolnool. ilmaha xataa ma jeclo, laakiin waa shiilaa si fiican markay u gaduudatay inay bislaato. iyada dhan inay ku miraqdaa badarka la rabaa basasha, oo laga dhex arkin hadhowti, yacni markaa dhulka ka dejisid. okay, hadda waxaa kusoo dareynaa markii wax yar basasha shiilantay hilibka waa hilib ari aa isticmaaleyno. waa soo daboolaya, wax biyo imaanan ku darin. cabaar isagaa biyo dhalaa isku huuraayo, waa aragtaan ilaa hadda biyo imaanan kusoo darin. maasha allah, hadda waxaa sameynayaa biyo ayaan kusoo darayaa 2 koob oo biyo ah, si fiican inuu u bislaadaa rabaa. 2 koob oo biyo ayaan kusoo darayaa, 2 koob intaa kusoo qiyaastay. hadda adi hilib adag rabtid markaas 1 koob bis waa ka dhigan kartaa, laakiin aan hilibka jilaac inuu noqdaa jeclaha oo ciyaalka ay cuni karaan. insha allah, hadda waxaa sameynayaa waa daboolayaa intuu hilibkan ka bislaanayo oo ka dhuuqaayo. yacni biyaha aa ku daray ayaan sugeynaa, kadib ayaan kusoo dari doonaa waxyaabihii u baahnaa inaan ku daro insha allah. isla socod wanaagsan asxaabteeda. ujeedin sidoo u karkaraayo, daboolkiisa ku celinaa, hal mar qaadada dhex mariyay, daboolkiisa u dhiibaya. okay, waa soo laabanay mar kale. waxaa sameeyaa yaa la wareerin, digsiga iska soo bedelay xoogaa, kaas wuu weynaa, aada u weynaa. hilibka xataa nus kiilo way iga dhex cararan fahanteen. marka kana ii kooban, kana kusoo badishtay. hilibka hadda wuu soo dhuuqay dhacaankii ama biyihii badnaa aa ku daray, wax yar oo dhacaana hadda ku haray. hadda waxaa kusoo darayaa waxyaabihii carfiska ama isbeysiska. insha allah wixii aa ugu talagalo oo dhan hadda waa kusoo wada darayaa. waxaa ka bilaabaya filfish shiidan. filfish ayadoo caadiya soo gataa ani, saasay ku fiican tahay, ku caraf badan tahay. waa tumaa ama waa shiidaa. 1 qaado waa filfisha, sidoo kale 1 qaado huruuda. mar walba waa weydiisaa nasr, huruuda tii korka la marsanaayo miya aa la dhahaa. huruuda tii korka la marsanaayo way tahay, laakiin tii dukaamada aa kasoo gadanayna ma aha. caagi ku jirtaa cuntada way asturan tahay dabcan. mida oo dukaamada wax walba iska tataabanayo ma aho oo shushubka ah. tan laakiin waxay ku fiican tahay cuntada, aamin waaye. caagaasay ku daboolan tahay, suuq bakaaraha lagu gadaa, caagaasayna ku jirtaa.
bakaaraha iyo supermarketyada intaba waa laga helaa. Waxaa kaloo ku darayaa hal qaado oo maraq digaaga qudaarta ka samaysan, isagana in badan ay weydiiseen. waa kana caageysa, ma aqaani dadka qaar inay magacyo kale u yaqaanaan, laakiin aan maraq digaaga qudaarta ka samaysan la iska dhahaa. waa ujeedin dhexdiisa xataa qudaar badan ku dhex jirto sida ka dhex muuqato, saasaana ku qoran. asagoo hal qaado ayaan ku darsanayaa. waxaa kaloo kusoo dareynaa insha Allah hal qaado oo xawaaji kaari ama kaari powder ama xawaaji yamani sida u taqaanaan. dabcan meel walba uu yaalaa, kaas waa la wada garanayaa. sidoo kale waxaa ku darayaa kabsar iyo toon isku soo tumay oo caadi ah soo tumay fresh maasha Allah. markaan kusoo daray spaceskii ama carcarfiskii waa isku walaaqeynaa intaan. wax kale oo caraf ma rabin inaan ku daro sababtoo intaana ku filan. huruudan maasha Allah maraqa kalar qurux badan u yeelaysaa. anigu huruuda inta badan maraqa waa ku darsadaa, waa jeclahay. kalar yar u yeelaysaa iyo dhadhan macaan. sidoo kale waxaa kusoo dari doonaa insha Allah liin dhanaan. liinta iyadana ma ka maqnaato cuntooyinka aan sameynaa, inta badan u fiirsada jikinka, malaayga, hilibka, maraqa, waxyaabaha aan sameeyo dhan liinta. waxaa waay liinta iyo filfish labadaas aada u jeclahay runtii. gurigeyga inay ka maqnaadaan ma jecli. oo kusoo daray hal xabo oo liin dhanaan dhadhan macaan u yeelaysaa liinta maraqa. insha Allah hadaa barataan idinkaaba iska dhaafeynin. waxaa kaloo kusoo darsan doonaa baradho iyo karooto ayaan diyaarinayaa oo jarjarayaa insha Allah. oo maraqa ugu talagalay. maasha Allah maraqa caraftiisa inaba caadi ma aha. haddaad tijaabisaan idinkaa kasoo heli doono insha Allah. biyo kale maanan ku darin. haddaa hilibka biyaha markuu igu soo bislaaday oo waxyaabihii carafta dhan ku daray. hadda baradhada markaa kusoo daro oo karootadana kusoo daro, waxaa ku darayaa hal koob oo biyo sababtoo ah maraqa ma ka rabi maraq biyo inuu noqdo. waxaa rabaa maraq sida suugada camal oo adag inuu noqdo. halkaas koob biyaha ayaan ku darayaa, kadibna waa walaaqayaa ama waa isdhexgelinayaa biyihii iyo qudaartii iyo hilibkii wixii dhammaan. kadibna waa dabooleynaa insha Allah. waxaa sugeynaa intay baradhada nooga bislaanayso. muufadiyaan sii aadeynaa oo noo qamiirtay, oo isku soo laabaneynaa insha Allah. okay asxaabteyda aan jeclahay, waa ujeedaan muufadii way soo qamiirtay maasha Allah. yaran indho arkosiino si fiican way soo qamiirtay. hadda waxaa sameyneynaa waa dubeynaa. birta ayaan hore dabka ka saaranaya, maxaan sugaaba insha Allah waa dubeynaa. isla socod wanaagsan. waa aragtaan muufadii sidee u qamiirtay maasha Allah. birta ayaan hadda dabka soo saaray. birta aan ku dubayo waxaa waaye birta malawaxa, maaha birta canjeerada. birta canjeerada waa ku dubi kartaa, laakiin waxaa sii qurux badan birta malawaxa oo weliba kuwanan istiiga ama wax qabsanin. maasha Allah. markaa kusoo shubay xabadii koowaad waa ujeedaan kor markay qaleel ka noqotay wax yar oo saliida tiftif uga siiyey. kadibna waa gadiyey si ay qeybta sare haddana iga gaduudato. hoosna waa ujeediin maasha Allah pancake u dhaaranimaho. muufada ayadii pancake walaalo waaye, ma fahanteen. qasitaanka yacni biyaha si loo jilcinayo way egtahay, qaabka loo dubayana pancake way egtahay. maasha Allah hadaa barataan muufadaana cadaab iska dhaafi doonin. muufa kale ma rabi, muufadaana rabaa aa leedahay insha Allah. anisaa u bartay muufadan, muufa kale ma isticmaali. maasha Allah tabaarakallah. xabadii labaad ayaa kusoo shubay. waa aragtaan markay hoos kasoo bislaatay haddana waa gadiyey. saliidana tifle lagu siinaa, horeyaa subag ugu soo qasay soo maaha. mal rabo inay saliida ka badato, wax yar oo ku gaduudato lay tiftif ku siinaya. kadibna waa gadinaya. haddaa qaleel zaa'id sii rabtid kaligeed waa duban kartaa. jikada adaa iskale xora u tahay, laakiin ani saana u dubtaa. qaabka ani u dubtaa ini soo bandhigaya. xabad saddexaada kusoo shubay. waxaana ku dardarooya furcanjeero maaha, waa koob yar. sababtoo ah furcanjeerada wuxuu kaa rabaa 2 jeer inaad ku shubtid, hal mar ma kugu filnaanayo. marka koobkaa ka fiican ama qaadoo kaleeto inaad ku dubtid sida markaas kuu fudud. insha Allah muufada sidaan ayaa kusoo dhameyneynaa. iyada dhan sidaan usoo dubayaa. dabcan 3 xabaadaa idinku tusay, idinku filan soo maaha. uma baahnidiin wax kaleeto. insha Allah waa soo dhameysanayaa. howl badana ii taalo. insha Allah markaas soo dhameeyay kadib ayaan isku soo laaban doonaa hadduu alla idmo. isla socod wanaagsan asxaabteyda. maasha Allah maraqa waa aragtaan markii baradhadii ay soo bislaatay dhacaan yar ayaa ku jiro.
wax biyo kuma daray. Sidaana rabaa inaan ugu dejiyo rasiinkaana u baahanahay inuu ii ahaado sababtoo ah maraq biyo meeshaan muufo adeego maraq tiro badan kaa rabto meesha ma taalo. Muufo jileeco sida baankeego kaligeed la cuni karo suuf haysta soo maaha. Marka wax biyo hada u sameeyo naxdee beeleysa maraq rasiin oo adag ama suugo oo kale inaa u sameeyaa macaan ku tahay. asxaabteeda marka waxaa rabaa dhacaanka sirka inaa ku reebo barbaroonigii basasha kusoo daray dabka waa kadibinaa qalaas sidaanu maraq diyaar noogu yahay. Okay, hadda waxaa diyaarsanaynaa cabitaanka maxaa ka sameyn doonaa maanta liin madaliini maal dhahaa ama liin oranji si u taqaaniin idinka. an liin madaliini waa dhahaa liin oranji waa dhahaa sida idinka u taqaaniin ma aqaan an labadaas magac ka saar liintan laakiin aad u jeclahay wallahi maasha Allah. cabitaankeeda waa ku dhartaa carafteeda jeclahay ilaa amarkiis marmaray suuqa ka go'daa laakiin inta ee taala iyada la cabaa iyada cabitaanka sameynaya soo miiraya insha Allah sida loo miiro qof walba uu yaqaan Soomaaliin iyada cabitaanka maanta ka sameyn doona insha Allah. Okay, oo soo diyaariyay qadadii dhamaanteed maasha Allah inaba caadi ma aha. maraq waa aragteen saa usoo kariyay muufada waa aragteen saa usoo dubay cabitaankii liin inuu ka sameysnaa waa idiin soo sheegay. maxaa kuu soo haray muufadii maasha Allah geeduud qurux badan ee kusoo baxday 2 saxan soo kala saaray. maasha Allah indhiheedu soo uma jeedaan markaa gadiyo sidaas jileecu taa iskugu laablaabmaysa iyada dhan inaba caadi maaha. waxaa ku dhahay waa qada dhameystiran aad u macaan badan maraq suuga laakan maraqna ma suugana maaha maraqii oo maasha Allah adeega ka soo dhiga waa kana isagana caadi ma aha aad u macaan badan yahay labadooda markii la isku cunaasa ka sii macaan ma fahanteen maasha Allah tabaarakallah. waxaa ku dhahay intaad yarta haysatid la shuuteystaa ma fahanteen wax weyn adoo raadininbo suuqa leetag 4 xabba soo gadan jirta soo gada laakiin iska shuuteyso bisbaaski ma ka maqna isagana meesha saladkii lagu cuni lahaa fruutkii la cuni lahaa qadada kadib maasha Allah waa qada dhameystiran. intaan daa cuntid maxaa ku dhiman alxamdulillah waa inaa dhahdaa intaan badada haysan alxamdulillah ilaah noo ziyaadiyo inta haysata ilaah u ziyaadiyo inta haysan ilaah siiyo. waa u jeedaa liinti macala barafkeedii maxaa ku dhahay maba sii suukar ina had shubo waa liinta liimadaliinida aad u jeclahay cabitaankeeda. waxaa sameeyay liina jarjaray ku dhaxriday garaafada koobkana hal xabba ku dhaxriday iska qurxun ama decoration maasha Allah. maxaa inoo soo haray oo inii sheegi rabe warkii aba iga kala lumaybo hada dharrooya mis dhaadeen maasha Allah runtii walaa qadadan daa sameystaan ama barataan muufo kale ma idin qabanayso marmarka qaar dilaac bilaash u sameystaa mar waxa u sameystaa hilib yar oo kalaan kale oo dhanaan ya marba sidee qabato loo sameeyaa insha Allah mar koosto. maasha Allah waa u jeedaa muufada si jileec tahay hal mar idin tuso si iskugu laablaambis hadayna inta u maleynaya iyada dhan maasha Allah suuf wallahi canjeero miya mala wax miya isdheeb mase baankeeg waa isku qalqaldeeb sida u jilcan tahay maasha Allah jab yar ka goonaya si u jarmaysa xataa waa dareemaysan soo ma aha sida u jilcan tahay muufa jileeci Allah ama muufa baankeeg ba iska dheh maasha Allah maraqay ku dhadhaminayna ina la dhadhamiyo ma horta maanta idin kale ma war idin wada ina iska dhadhamiyo waa halko mar faanteen. bismillah ما لو شاكين كرو ما شاء الله تبارك الله إنه معان ما أهوكلهن معان كالس كارك. أوكي أصحابتي دقاليقة حارجينا يعني آد وفانتين 10 كلمات ونكوذ مقصودين دمانتين إن شاء الله ونتيجابين دونتان hadduu muuqaalka ku cajabiyay biliis like saar wixii fikrad ee qaybta commentiga noogu reeb asxaabtaadan la sii sheergaray si aygan uga faa'iideystaan insha Allah intaa ku kulmi doono muuqaalkan lamid waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah. Assalaamu calaykum.